بسم الله الرحمن الرحيم. مع ميشا شرفت له كحيران شركة ضلس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قعمة فران إيوه أديك هفن أو إذن رالي قليا هذا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا مانتا مركالة إذن سو قدبينينا قولي إيبا ولا ليال كسو دوادا داوشو عن ولا ليال قولي إيبكا waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu sii yaalaa degmada Kaaraan waxa kamid tahay degmooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho sidoo kale degmo qadiimi ah waa degmo si weyn loo degan yahay walaalayaal degmada Kaaraan waxa uu sii yaalaa laanta ama qaybta Djibouti si gaar ah suuqa degmada Kaaraan walaalayaal gurigan markaa soo aadaysid waxa soo dhaafaysaa saldhigga degmada Kaaraan oo laamiga saaran dhanka suuqa markaa soo aadid oo suuqa bilaabanayo meeshaas ayuu ku yaalaa wadadiisa waa aragtaan wadadan weyn waa wadadii laamiga ee ka imaanaysa jeerada dhankaasna waa dhankii suuqa guriga iibka ahna waa gurigan hadda ee kaamiradu hayso ganacsiga uu ka furan yahay dhinacan mootooyinka bajaajka ee ka soo socdaana waa dhankii isgooska jeerada iyo saldhigga degmada Kaaraan walaalayaal soo dhawaada gurigani waa guri meel aad istiraatiiji ah ku yaala waa suuq dhexdiis meel aan dhihi karno waa suuqa degmada Kaaraan guriga noocan oo kala ah waa ganacsi sidoo kale waa mustaqbal waa meel ay lacag fiican ka soo gali karto haddana kira ahaan lacag fiican aad ka heli karto haddii aad horumarisid oo dabaqi ah ka dhisidna sidoo kale aad nooca rabto uga faa'iideysan kartid walaalayaal haddii aan u gudbo xagga cabirka gurigan iibka ah wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 12 mitir lagu dhuftay 12 mitir ama doodisho bardoodisho hadba sida u taqaanid dhinac kasta wuxuu u yahay 12 mitir waa 12 mitir balac ah iyo 12 mitir oo dherer ah wadada laamiga ah waxa uu ka haystaa 12 mitir wadadan kale ee interlock ahna walaalayaal wuxuu ka haystaa 12 mitir xagga cabirka waa heer sare gurigaas aragtaan ayaa ka dhisan waa dhulalka ama boosaska loogu tala galay in hal guri ama hal dabaq laga dhiso waa cabir waasac ah haddii filo laga dhigo kale boosaska noocan oo kala ah waxa laga dhisi karaa ilaa 5 qol sida uu ku fiican yahay xitaa boosaska qaar 6 qol ay ka dhisan tahay arkaysaa waa boos dhameystiran doodisho bardoodisho walaalayaal haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo booskan iibka ah waxa lagu rabaa 220,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha Allah taala walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan gurigan idin soo tusino haddii aad ku qanacdaan qiimaha laga heshiiyo oo wixii macquul ah la idinka dhimo insha Allah taala walaalayaal haddii aad maqan tihiin dhanka WhatsApp-ka ayaa naga soo wici kartaan faahfaahin dheeri ah ayaa idinka sii siinayna insha Allah taala kadibna qof wakiil ah oo idin soo arko ayaa soo dirsanaysaan markaas ayaa qiimaha laga heshiinaya insha Allah taala wixii macquul ahna la idinka dhimayaa waliba si weyn in la idin dhaqaaleeyo ayaa rajeynaya insha Allah taala walaalayaal haddii aan u gudbo xagga wadooyinka gurigan iibka ah sida idin sheega waxa uu leeyahay laba wado waa tan laamiga ah ee uu saaran yahay waa berimo laami sidoo kale waxa uu haystaa ama uu saaran yahay wadada kale ee jidcadka ah hadda jidcad yaaba dhihin ee interlock ah marka waa laba jidle laamiga saaran laamigana 12 mitir ka haysta wada interlock ahna ka haysta 12 mitir haddii aan walaalayaal u gudbo xagga jihooyinka iyo dhanka u jeedo walaalayaal gurigani waa koonfur ujeed
iyo galbeed ujeed iridiisa waa aragtaan laamiga ayuu ku soo jeedaa oo koonfur ugu soo jeedaa sidoo kale wadada interroog ah dhankeedana waa loo jeedin karaa oo ah galbeed dabaqii ama gurigii laga dhiso ee filada ah labada dhinacii raba ayaa loo jeedin karaa soo dhawaada walaalayaal laba jidlaha waa noocyada loogu jecel yahay degmada Kaaraan iyo xaafadanbana waxay caan ku yihiin in boosaska oo dhan ay yihiin laba jidlayaal marka la soo dhawaado laga faa'iideysto walaalayaal haddii aan u gudbo xagga dukumeentiga iyo sharciga gurigan iibka ah waxa uu leeyahay dukumeenti saxan oo dhameystiran kaas oo ah rasiid iyo safarlog original ah maxamed siyaad barre ah waa dukumeentiyadii la bixiyay 19 ka hor sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah way u dhameystiran yihiin walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate waxaa diyaar u nahay inaad dukumeentiga idin geyno nootaayadii aad dalbataan si la idinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumeentiga insha Allah tacaala walaalayaal haddii aad dhul ama guri beec ah ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir si gaar ah degmada Kaaraan nala soo xiriira sidaan oo kale ayaa idinku beec geyneynaa insha Allah tacaala walaalayaal sidoo kale haddii aad dhul ama guri beec ah ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira waa idin heleynaa insha Allah tacaala si hufan ayaa idinku shaqeyneynaa shirkadda Dallis Real Estate astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha ugu dambeyntii walaalayaal oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkana afurataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala sidoo kalena Facebook follow inaga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.